bal waxaad muuqaal iga siisaa 2010 sidee dalkan u ekaa Jarmanka weligeed waa la soo geli jiray laakiin inta uu bilaabay inuu qaxooti qaabil uu wadanka furfurmo mid kamid ah kiisaska kuugu yaabka badnaa ee ku soo maray laakiin aniga waxyaalaha anigii saameeyay kale waxaa kamid ah qof dambiila ama dambi galay ama lagu soo eedeeyay inuu dambi galay in lagu soo wacay oo aad maaragtay u turjuntay systemkaani maybe wadankan wax badan joogay systemka wadankan baa iska aaminay ma cabsado laakiin meelo badan oo waxaan tagaa macnaha oo dad mataqaanaa ay ma ka hadlayaan waxay sameeyeen kama hadlaya qofka dalkan markuu yimaado uu qaxooti yahay dhiig ma tabaruci karaa mise mid baa jiro kugu haraya oo complicated noqonaya oo qofka jirkiisa ku haraya kaas wuxuu ka xun yahay cudurka kaluu ka xun yahay badanaana qofka uu intimo uu dilaa ugu dambeyn qofkeedu uu dilaa السلام عليكم سو دواada saaxiibayaal barnaamijkan gaarka ah oo aan ugu talagalnay in aan idinku barno ama aan idinku wadaagno dadka dalkan ku nool manahan kaliya inaan idin bari doono waxna idinkaga sheegi doono dadka halkan ku nool way aragnimadooda isdhexgalkooda bulsho sidoo kale waxaan isku dayi doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo inaan dunida dhan dadka Soomaalida ah ee way aragnimadooda aan wax uun ka reebi karno aan idinkaga diiwaan galino maanta waxaan joognaa magaalada Munich oo ah caasimada gobolkan xorta ah ee Bayer sidoo kale ah mid kamid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan dalkan Soomaalida ugu badan ee ku nooshahay maanta barnaamijkeenan waxa marti noogu ah Ramadaan Axmed oo ku magac dheer Xasanji soo dhow Ramadaan waan dhawahay barnaamijka waan ku dhawahay aad baad ugu mahadsantahay inaad barnaamijkaada igu casuuntay ana dhawahay Ramadaan aniga waa ku garanayaa dad badan way ku yaqaaniin oo dalkan ku nool laakiin waxaan jeclaan lahaa in saaxiibadeena mataqaanaa nadaawanaya ee barnaamijkan ku xiran ama barnaamijkan ku xirmi doono in bal aa u sheegtid qofka aad tahay Ramadaan Axmed baa la yiraahdaa Xasan Jiib aan ku magac dheerahay wadankan Jarmalka waxaan soo galay 2010kii ilaa intaana magaaladan Munich baan deganaa oo ku noolaa halkaan baan dugsi hoose ka bilaabay markaan imaaday dugsi dhexe Osbilina ku dhigtay 2 Osbilin baan ka baxay ilaa aan mataqaanay shahaadada aan faaqa bitur ka qaatay muddo dheer baan shaqeynayay ciyaal baan iska kursanay haddana waxaan ahay jaamacad baan ku jiray arday jaamacadeed baan ahay marka waxaan maleynaa dadka yaqaanana waxay aad igu yaqaanaan turjubaan inaan waxaan u shaqeeyaa hay'adda qaxootiga dalka Jarmalka ee la yiraahdo BAMF baan turjubaan ka ahay marka dad fara badan baa waxa laga yaabaa inay wajigayga ay halka ka gartaan 16 sano 2010kii baa dhaaday inaad dalkan timid 2010kii waxa ka soo wareegatay 16 sano danadeeda waxay ka dhigan tahay dalkan waxa ku nooshay 16 sano exactly waron 16 sano magaaladan iyo Jarmalka ba ku noolaa laba jibaar inta aan aniga dalkan aan joogo bal waxaad muuqaal iga siisaa 2010kii sidee dalkan u ekaa horta niyo anaga dad yar oo markaan naga soo horeeyay ayaa wadankan naga soo horeeyay macnaha 2000 iyo Jarmanka weligeed waa la soo geli jiray laakiin inta uu bilaabay inuu qaxooti qaabil uu wadanka furfurmo 2007dii 8dii 9kii bay ahayd markaan anaga imaanay 2010kii mar la ogaaday Jarmanka inuu dadka qaabilay ahayd oo Soomaali badan way joogtay laakiin dadka imaanaya waaga waxay ahaayeen badanaa dad fara Yurub ku lahaa dad macnaha sida hadda loo soo aado wadankan oo kale ma ahayn ee dad fara ku lahaayo wadamada kale ka soo galay bay ahayn aad looma badnayn aniga Jarmalka dhan hadda kuma sheegi karo München bas aan deganaa marka München aad looguma badnayn Soomaalida marka joogtayna way iskugu jireen rag qorshe leh iyo rag aan qorshe lahayn inta wal iskugu jireen dalkan iyo qofka marka uu yimaado process-ku uu maro marxaladaha la marsiiyo bal wax iiga sheeg maxaa yeelay qofku markuu cusub yahay uu dalkan yimaado ma yaqaano habka la maro habka sharciga baan ka hadlaynaa sharci darrada wixii sharci darrada anaga shaqo kuma liin waxaan ka hadlaynaa wixii sharciga habka sharciga ee qofku uu maro si mataqaanaa dadka cusub ama dadka imaan doonaba ee muuqaalkan daawan doono ee ugu yaraan ogaadaan haddii dalkan xaq ay u leeyihiin inay qaxootinimo isaga dhiibaan processka ay marayaan horta anaga ma dhiirigelinayno inay dad soo tahriibaan mana dhiirigelinayno inay si sharci darro ah qaaradda Yurub iyo Jarmalka ay ku soo galaan markii badanaa la soo galay dalka Germany
badanaa dadka waxaa lagu qabtaa tareenada ama basaska askarta waddanka qabato marka qofkii waa la qabanaya markii la qabtana automatic waxaa la weydiinayaa maxaad xageed u socotaa documenti baa la weydiin wixii ma wato badanaa qofka markuu iska socdo ama tahriibayo wax warqado wato ma leh weliba qowmiyadda annaga aan kasoo jeednay soomaalida waa dad macnaha aan wax warqadaba wadaninba dalalka kale xitaa warqaday wataan sawiray wataan dokumentiyada marka qofka waa la qabtaa faraha askarta ayaa fara ka qaada marka waxaa laga baaraa dembi inuu horta qofkan dembiile la raadinaya yahay waa faraha ugu horeeyo soomaali badan baa u taqaana faraha booliiska laakiin isla faraha waa la hayaa dowladda waa haysaa kadibna waxaa la weydiinaya qofka maxaad u socotay qaxootinimo buu leeyahay qofka badanaa dadka soo taariibay way ogyihiin waddada wayba garanayaanba iyo waxay dhahayaan dadkeena way yaqaanaan qaxooti bay leeyihiin kadibna hay'adda qaxootiga loo gudbin marka ugu horeyso waxaa la geeyaa meelaha dadka lagu qaabilo ugu horeyso mataqaanaa af jarmantan ku sheegay dadka ma yaqaanaan ersta ofnaamaha oo kaleeta la geeyaa meelo waaweyn oo dadka lagu iskugu soo aruuriya la geeyaa kadibna waxaa lagu sameeyaa waa la qaybiyaa fertilon kolba markaa gobol baa furan oo mataqaanaa ay kaamakooda boosas ka banaan yihiin qofka lama weydiinayo waxaa jira wadamada qaarkood yurub oo laleeyahay qaraabo ma kuu joogtaa iyo kan laakiin hadduu qofka uu 18 sano badanaa ka wan yahay haddii uusan xaaskiisa ama ilmihiisa ama qof saas oo kaleeto u dhow adduunsan jirin wax la qiimeynaya male codsigiisa meeshii markaa kaam ka furan yahay oo ilbaabada mataqaanaa u furan yihiin baa la geyn marba meel baa furan oo dadka la geeyaa hadda markii ugu dambeysay oo kaleeto dadka ugu badan waxaa la geeyaa Regensburg gobolkan oo kale kolba meel baa la geeyaa markaas waxaa u bilaabanaysa kaamka labaad markii la geeyo baa processka qaxootinimada bilaaban hay'adda BAMFI ayaa mataqaanaa Bundesamt für Migration und Flüchtlinge la yiraahdo loo soo gaabi BAMF ayaa qofka mataqaanaa loo dirayaa halkaas faray laga soo qaaday marka way faraha saxda ah ee laga baarayo waddan uu Yurub soo maray ma jirtaa waa faraha Soomaalidu yaqaanaan Dublin farahaas laga qaaday haddii marka aad waddan kale oo Yurub soo martay waa mid badanaa Soomaalida ama ogyihiin ama iska dhiga tiraan waddanka ugu horeeya qofka Yurub ka soo galo ayaa qaabilsan kiiskiisa kadib ayaa mataqaanaa la fiirinayaa haddii uu safran lahayn processka marka waxaa lagu marti qaadayaa casuumaadii labaad ee lagaga qaaday wareysiga interviewga caadiga lagaga qaaday turjubaan Soomaali baa u jooga lagu balamin marka waa process dheer oo hadda aan meesha kusoo koobi karin balse wax saa u eg oo kaleeto wey si fiican baan kuu fahmay BAMF dadka aanan fahmin waxaan isku dayaynaa mar labaad inaan af Soomaaliga ugu dhow aan ku sheegno yani BAMF waa qayb ka mid ah hay'ad hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha waxayna qaabishan tahay socdaalka iyo qaxootiga marka waxa ii sheegtaa qofka markuu dalkan yimaado da'yar markuu ku yimaado iyo markuu da' weyn ku yimaadaba fursadaha u furan maxay yihiin ni horta da' weyn iyo da' yar waa kaafi kala dheeri fursado waaweyn baa u furan qofka markuu da' yar yahay laakiin qof aan da' yar ahayn kuma dhiirigelin inuu hadda inuu is yareeyo kama wadno kaliya waxaan ka hadlaynaa qof da' yare fursadaha u furan badanaa waagi hore qofka waa iska dhihi jiray waa laga yaabaa in ay u martaa laakiin hadda waxaa la iska qaadaa baaritaan saxa la ismariyaa oo waraysi leh oo xitaa haddii lagaa shakiyo lagu diraa doctor caafimaad lafaha lagaa baaraya ilkaha lagaa baaraya markaad sidii hore oo kaleeto maaha way adkaatay laakiin qofka haddii la xaqiijiyo inuu da'yar yahay fursaduu leeyahay markaa qofku wuu ka faa'iidaysan karaa sababtaa marka ugu horeysaba hadduu fara lahaa waa sheekadii farahan daba socnaay hadduu fara yurub ku lahaa halkaasay farihii ku hareen hadduusan waddanka uusan sharci ka soo qaadanin xitaa qaarkood hadday sharci ka soo qaataan oo qof meesha u dhow joogo oo kale hadduu fare qofka leeyahay oo da'yar yahay waddankan macnaha ma celiyaan badanaa sida caadiga ma celiyaan hadduu qof weyn yahayna waxaan ka hadlaynaa fursadda ugu horreysa uu leeyahay hadduu qof weyn yahayna uu fara ku lahaa tusaalahaan waddan yurubta waddamada laga soo galaya albaabadeeda oo kale sida Greek oo kale markaa wax xaq uu waddankan ku leeyahay male xitaa haddii uu mataqaanaa iska soo dhiibin farahaasaa mataqaanaa qofka qabanaya buuggii naxariista la isku baaray iyo dacwad iyo lawyer taa waa meesheeda laakiin sida saxda waxay tahay waddankii ugu horreeya Yurub ka soo gashay ayaa ku qaabilaya taa waa qaybta koowaad qaybta labaad haddaan u gudubno waa waxbarashada fursadda waxbarashada qofka waxaa isla markiiba waa la qaabilaya da'yarnimaa lagu qaabili waxbarashaa la siin guri waxaa la geenayaa leh meelaha batroyan waddankan u naqaanaa waxaa loo sameynaya qofka Soomaalidu waxay iska dhayaan waalid laakiin waxaa la formudka waxaa laga wadaa si sharci qofka warqadihii kuu saxiixi lahaa booskii waalidka weeye laakiin waalidkii guriga la seexanaysa ma waa qofkii kuu saxiixi lahaa dokumentiyada sababta haddaad 18 ka yartahay saxiixaada ma shaqeynaya marka fursadaas waxbarashaday leeyihiin waxbarashaan loo raadin halkaasuu macnaha ka bilaabanayaa
haddii qofkii markaa uu rabo inuu wax barto oo kale dhalinyarada ahaa ilaa meel fog buu ka gaari karaa markuu da'yar kusoo galo mar hadduu systemka waxbarashada galo waa qofka iyo rabitaankiisa waxay ii sheegtay in marxalada kala duwan oo waxbarashada soo martay inaad dugsi hoose soo dhigatay dugsi dhexe soo dhigatay haddana aad heer jaamacadeed marayso sidoo kalena xirfad ahaan inaad qof turjubaana tahay aniga laftayda markii ugu horreysay oo aan ku bartay oo aan ku arkay dadkan u sheegaya sidoo kale nin turjubaan ahayd turjubaan kaliya ma ahayn xitaa waxa ahayd qof tala bixiyo oo maaragtay qofka tala wanaagsan siiyo waxaa xasuustaa taladii ay siisay inay ahayd inaan dalkan afkiisa barto dalkan afkiisa iyo afka Soomaaliga isku turjuntaa turjubaanka iyo waajibka saaran marka dalkan la joogo maxay tahay turjubaankan iyo waajib weyn baa saaran ta ugu muhiimsan waxay tahay waxaan loogu yeero afka qalaad neutrality inaad dhexdhexaad ahaato macnaha qofkan waa isku dalban ka imaanayo ma shaqeynayso waa dhexdhexaad baa tahay sababta qofkii caawinaya matid waxaa laga yaabaa turjubaan isku dayna caawiso tusaale ahaan oo kale oo bad problem gelis sidaas daraadeed qodobka ugu horeeya qofka turjubaanka laga rabo waa inuu yahay qof dhexdhexaad ah waa inuu luqadda uu labada luqadood u fasiray kaliya luqad ahaan inuu yaqaan ma waa inuu labada dhaqan yaqaan sababta qofkan si uu wax u dhihi haddaad isla sidii 100% u gudbisid oo dhaqan ahaantii fiirin waxa laga yaabaa inaad problem meesha ka dhasho marka waa inaad dhaqankii labada dhinacna aad garanayso oo labada aad kala turjumaysa adoo isla markaana 100% turjumaya haddana gudbinayo informationkii labada dhinac sidii saxda ah u gudbinayo waxaa laga rabaa qofka tusaalahan oo kaleeto aniga waxaan ka shaqeeyaa banfi hay'adda banfi ka shaqeeyaa awal hore waa iska qof walba iska turjumi jiray shahaadooyin yar yar ay ku xiri jireen laakiin markii dambe quality-ga ayay kordhinayeen macnaha tayada turjubaanka ayay kordhinayo bay si ayna iska dhigeen marka meelaha qaarkood B2 oo kaleeto ayaa lagaga turjumaa laakiin hay'adda qaxootiga ee Jarmanka ee banfi loo yaqaano qofku waa inuu si ayna haysto marka waxyaalo fara badan baa laga rabaa tusaale ahaan oo kale waxay siiyaan koorsay siiyaan ani koorsan soo dhigtay markii ugu horeysay crash course oo badnayn haddana isla hay'adda u shaqeynayso si takhasus ay ku siiso haddana koorso kale ay ku dirayaan badanaa waa online koorsooyinka ku dirayaan maaha luuqad waxay ku saabsan tahay koodka ama ana qaabka ay u shaqeynayaan waxyaalaha iska ilaalinayso waxaas oo dhan baa lagu bari marka turjubaanka waxaa kaloo laga rabaa inuu yahay qof waqtiga ilaaliyo punctualish macnaha haddii aad saacadii lagu talagalay aad imaan weyso turjubaanimada wax weyn baa ka dhiman waxaa kamid ah aan kugu sii daray waxaa kamid ah macnaha turjubaanka inuu qofka uusan qorin madaxa yar xanuunay karaankii oo kale macnaha dadka qaarkood oo kale waxay iska dhayaan waanta waa xanuunsanay laakiin markaad turjumayso waxaa laga yaabaa in lagu belamiyey 5 qof adiga haddaad imaanina ay meesha dhan waxba kala soconayn marka sidaas daraadeed waa inaad shaqadaada 100% ilaalisid oo aadan madaxa yar xanuunay xaalan waqti dambe seexda insan dhicin oo ilaalisid marka turjubaanka markii qofka uu rabo si sax ah inuu turjubaan noqdo waajibaad fara badan baa saaran sababta waxaa tahay labadan qof isma fahmayaan haddii aadan si sax ah aadan shaqadaada u qabsan karin dad badan waxaan kula talinayaa inaysan haddaysan waxaasoo qodobaysan ilaalin karin inaysan turjubaan xitaa isku dayin laakiin hadday qodobada ilaalin karaan shahaadadiisii ayniska oo kale haystaan macnaha weli shaqa ka banaan weliba banfiga waxaan u sheegaa dadka inay shaqa ka banaan tahay waan gartay turjubaanku dalkan markii la joogo interview ugu muhiimsan ee qofka markuu dalkan yimaado ama dalkan uu joogo maro waa kan uu hay'adda qaxootiga iyo socdaalka balanta uu leeyahay uu ka maro kaasoo lagu go'aaminayo noloshiisa ama mustaqbalkiisa dalkan dad badan oo ay banfigu codsiyadooda magangeliya diideen inta ugu badan yani waxay u sababayeen inay noqon karto arrin ah qofka turjubaanka ah ee maalintaas turjumaya in uusan si saxa labada luqadood isugu turjumi karin ama si kale u dhaho in ayba isfahmi karinba in mataqaana qofkan uu ka imaaday gobol kale ama in deegaan kale ka yimid ama in ereyada qaarkood la isku fahmi kari waayo marka door nuucaa buu ku leeyahay qofka turjubaanka ah interviewga ama mataqaana masiirka aan dhaho nololeed ee qofka Soomaaliga uu dalkan ku leeyahay sida hore uga dhawaaqay waxa laga yaabaa inuu qofka rabo inuu caawiyo taasoo sababi karta inuu dhibaato maartay keeno yani balamaha kale anay kama hadlayno laakiin tan hay'adda qaxootiga iyo socdaalka ilan waxa jiri karto marka qofku in mataqaana turjubaanka laftirkiisa qofkan qof cusub waaye
ma yaqaano in qofkan turjubaanka wuxuu u heystaa in qof maadaama qofkan turjubaanka ay dowladda ballamisay uu dowladda ka socdo wuxuu u heystaa qofkan inuu yahay qof go'aan yani saameyn karo interviewgiisa haddii uu dhaho nin aniga qofkan ma fahmi karo waxaa laga yaaba wuxuu isleeyahay ama dhibaato ku timaada marka doorka uu qofka turjubaanka ah interviewga ku leeyahay maxay tahay sidoo kalena qofka loo turjumayo xaqa uu leeyahay muxuu yahay niyo awal horeeto macnaha qofka wuu iska imaan jiray waraysiga laakiin hadda markuu isdhiibayo waxaa la siiyaa warqado fara badan dadkii isdhiibay way garanayaan warqado fara badan baa la siiyaa waa la weydiiyey qofka soomaali ku hadashaa warqadaha waxaa ku qoran soomaali waxaa ku qoran wax kastoo xaq uu leeyahay boroseeska dhan baa ku qoran inuu interviewga uu diidi karo qofkan u turjumaya ku qoran inuu dhihi karo ninkan isku laajad manihin muusan fahmin baa ku qoran xitaa maaha markuu soo galo asaga oo interviewga dhexda marayo qofku wuxuu dhihi karaa aniga qofkan kuma waqancinba waan ka bixi karaa waxaan u sheegayaa dadka inay taa samayn karaan oo wax negative ah oo go'aanka mataqaanaa laga gaarayo ay ku leedahay male laba jeer hadduu turjubaan bedelo wax dhibaato ay ku jirta male laakiin dhibka kama imaanaya turjubaanada dhibka wuxuu ka imaanaya dadka ayaa waxay u maleeyaan inay intay qolka soo galaan inuu waraysigii isaga iska shaqaynaya waa inuu noloshaadii maadaama ay tahay program maalinka keliya ay noloshaada wadankan ugu muhiimsan ay tahay waa inaad u soo diyaargarowdo inaad u soo diyaargarowdo micnaheeda ma inaad been sii qorato kama hadlayn waxaan ka hadlayn waxay tahay inaad og tahay macnaha wax adiga lagaa rabo tusaale ahaan oo kale dadka waa loo sheegaa markii waraysiga ay gelayaan mar walba oo loogu celiya waxaa la dhahaa kama hadlayno dhibkii dadkii aad ka soo tagto ku dhacay ama dad dhintay dhibkii ku dhacay reerkaa naga laayay kan baa dhacday waxaa lagama hadlay adiga maxaa wadankan ku keenay adiga wadankan haddii aan ku celino wadankaada kugu celino khatarta wadanka kugu sugaysa maxay tahay hadduu qofka labadaas su'aalood fahmo oo uu si fiican mataqaanaa ugu soo diyaargaroobo macnaha wax badan baa u hagaagi lahaa waxaa kaleeto oo mataqaanaa dadkeena aysan aqoonin wadankan wuxuu ilaaliyaa wax la detailka macnaha micnaheeda ma aha annaga meeshii maanan joogin faahfaahin annaga meesha maadaamaanan joogin adiga dhibkii aad la kulantay waa in aad sidii cajalad filima noogu shido oo aniga indhaha haddaan isku qabto adoo hadlaysid aan arko qisadii inaan sawiran karo dadkeena laakiin wuxuu isku leeyahay dhibkaabaa igu dhacay halkaasuu sheekada kaga soo haraya marka badanaa dadka waxay iska saaraan turjumaanka ayay dhahaan turjumaan baa ay khalday turjumaan baa kan igu sameeyey way dhici kartaa turjumaanka ani turjumaanada ma difaacaye laakiin waxaan leeyahay dhibka ugu badan xagga dad qofku ka hala diyaargaroobo xitaa talooyin dad kale halala soo tashto adduunka waxa noloshaada ugu muhiimsan waa loo soo diyaargarooba talaana la soo qaataa marka idinkoonan wixii ka warqabin haddaad meesha imaataan idinka tusaalahaan kale waxaa dhici karta aan kugu darayaa qof ku hadla af maaymaay oo kaleeto inuu mataqaanaa turjubaan aan maaymayga aqoonin xaq buu leeyahay inuu maymay ku hadla marka qofkan hadduu dhaho mataqaanaa aniga ninkaani ma fahmayo oo waxaan sheegay ma fahmay hadduu dhaho xaq baa u leedahay ninkan ma fahmay inaad iskaga tagtid yani dowladda Soomaalidu way badan tahay kaliya ma af maxaa tiri bas laguma hadlo dowladda hadda aniga waa dhihi karaa aniga mataqaanaa may kaliyan ku hadlaa baad dhihi kartaa dhibaatada kaliya waxay dhici kartaa in turjumaanka mayga uu waqti dheer qaadan karo kaliya intaa way dhibaatada laakiin haddaad dhahdo aniga may waxaan ahayn yaa liigu yeerin xaq baa u leedahay waa xuquuqda aad dowladda ku leedahay wey dadka Soomaalida ee mayga ku hadlo xasan wuxuu leeyahay waxay xaq u leeyihiin in ay codsan karaan qof may ku hadlo haddii aad maxaa tiriga isleedahay waxa laga yaabaa inuu kugu adkaado xaq waxa uu leedahay in dowladda aad ka codsato qof may ku hadlo inay ku keento marka waa laga yaabaa inuu xogaa yar waqti qaato sidoo xasan ka dhawaajiyay laakiin waxa waaye xaq u leedahay xasan waxa iiga warantaa niyow waa sidee waxbarashada dalkan macnaha turjumaanka aan ku sii raacintaan waxbarashada wadanka gelin turjumaanka waxa ugu muhiimsan ka tagay waxay tahay in uu sirta dadka ilaalin karo haddaad tahay qof sirta ka hadli karo ha isku noqonin turjumaan sababtoo ah xabsi dheer baad ku gelaysaa haddaad sirta sheegto because qof dhan baan sirtiisii noloshiisa kugu aamini doono marka waxaa weeye in aad haddaad sirta ilaalin karin aad mataqaanaa aadan gelin turjumaan aadan noqonin marka taasaan adaa ka tegay turjumaanka inaan ku daro waxbarashada dhinaceeda haddaan usoo laabano macnaha in qofka uu turjumaan noqdo keliya maaha inaad luuqadda taqaano waa inaad xitaa aad soo turjuntay aniga hadda tusaalahaan kale hadday kaga dhawaajisay markaas arkaynay iskumaan arkin hay'adda qaxootiga waxaan iskugu aragnay hay'ad kale aan isku aragnay hay'addii kaleetaan isku aragnay marka qofku waa inuu
luuqadda dhinacyo badan kasoo barto caafimaadka kasoo turjumo dhalinyarada dadka da'yarta kasoo turjumo socialka meelaha kasoo turjumo markaa luuqadiisii oo aad macnaha faaq bagriif erayada mataqaanaa muhiim ku ah waraysiga oo dhinac walba qofka aad ka fahmi karto aadna gudbin karto ayaad imaanaysaa marka qofka hadda intuu dhaho C1 baan haystaa ama shahaada baan haystaa turjubaan inuu kusoo ordo waxaan kula talinaa iyadana horta inuu because maadaama nolosha erayada aad leedahay laga gaarayo qof dhan mustaqbalkiisa inaad horta meelahaas kale aad kasoo bilowdo adoo mataqaanaa dhisan ay kuu fadhiso erayada soomaalida saas dhan ay kuu fadhiso inaad meesha soo gasho intaan ku guda jiray diyaarinta barnaamijkan waxaan booqday website-kiina ama website-kaada waxaa ku qorneed in ka badan 2,000 oo jeer yani aad turjubaan noqotay ama aad kiis turjuntay sidoo kalena waxaa qorneed in 92% dadkii macmiilka ku ahaa inay hawshiinu ama adeegiinu ku faraxsanayeen waxaa iga warantaa 2,000 oo kiis yani kiisaskii ma dhaheenno sir bixi laakiin kiisaskii kuugu yaabka badnaa mid ka mid a kiisaska kuugu yaabka badnaa ee ku soo maray wallaahi macnaha horta niyow dadka qaarkood markay maqlaan 2,000 waa hore ahayd macnaha ka badan baan aniga hadda sheeganaya waa gartay macnaha waadna garanaysaayo haddii la dhaho sanadkii haddii la dhaho maalmo waa la turjumayaa waxa ugu badan ee turjumi karta waa 5 maalmood waa 5 beri waa gartay sanadkii markii 365 laga jaro 5 maalmood 200 iyo xoogaa soo haraysa laakiin marar maalmaha qaarkood waxaan shaqayn jiray 3 tarmiin 4 tarmiin baan yeelan jiray oo saacada ah taas way marka waxaan 2,000 because dadka waxa laga nadaa waxaan wax badan weey marka waxyaalaha ugu adkaa in turjumay macnaha waa sir bay ahayn ma geli karo laakiin aniga waxyaalaha anigii saameeyay oo kale waxa kamid ah arrimaha caafimaadka macnaha dad baan u turjumay oo caafimaad mataqaanaa arrimo caafimaad haysto oo mataqaanaa markii dambana aan tacsidooda ka qayb galay taas oo kale aan iigu mataqaanaa waxyaalaha ilaa hadda xasuusta kamid ah laakiin waxyaalaha kale waa wax dadkay og yihiin waxyaalaha dadka ka sheekeeyaan way ee caadiga laakiin dad baan baglayton u sameeyay la socday ilaa ay ka dhimanayeen oo muddo dheer aan u turjumayay ilaa mataqaanaa cudurro lagu sheegay markii dambana taas oo kale taani waxyaalaha ilaa hadda qalbigay ku haray kamid ah dareenka qofka turjumaanka yani wuu ka duwan yahay dadka kale maxaa yeelay waxaa lagu waramaa si in loo sir baxayo kale marka qof yani saameyn maskaxeed ama saameyn nololeed oo sidee buu leeyahay qofku markuu mataqaanaa saada ka dhawaajisay markaad qof aad yani biglaytin ku samayso ama aad la socoto ilaa noloshiisa ay ka gabagabowdo يعني dareen nafsadeed oo nuucee bay kugu reebaysaa ka qof ahaan aniyo macnaha horta dar qof walba oo dareen buu leeyahay waxbay ku reebaysaa laakiin mar alla keeno turjumaanka markaa tahay waa inaad ogtahay inaad wax walba aadan adiga waxba ka qaban karin shaqadaadana ay tahay kaliya inaad turjunto taa markaad ogtahay tan labaad noo dheer waxay tahay dad annaga waxaan nahay muslima mar haddaan muslim nahayna wax walba inay dhici karaan waan ognahay adigaaba ku sugaysaaba adiga ani waa xukumanahay adiga waa xukumantahay dadka dhan waa wada xukumayin marka keliya qofkaasaa la soo hordoontay oo mataqaanaa ajashiisa dhamaatay annagana waa xukunay markii mar hadda anigiiba aan xukumahay sidaas daraaddeed ayaa mataqaanaa ay dhahaa okay qofkiina waad ka dambaysaa waad u ducayni laakiin macnaha waxyaalo fara badan oo dee qalbigaada wax ku reebay way jiraan hay-adaha loo turjumayana waxay leeyihiin meelo oo cilmi nafsi ah oo qofka tusaalahaan oo kaleeto haddii dhibaato uu kala kulmo turjubaankii oo wixii asaga ay saameyso ilaa dadka wada qalbi maaha ay tagaan oo ay ka sheekeeyaan waa taqaanaa waxaana terabiga dhahan oo kaleeto meelo badan baa jiro supervision bay dhahan supervision kaasaa la tagaa markaas waxaa leedahay okay arrinta sababta waxaa lagu leeyahay qari dhibaatada ugu badanna waxay tahay qofka haddii uu ka sheekeyn karo dadkii buu la wadaagayaa dhibkii laakiin adiga waxaa lagu leedahay ha hadlin taasaa marka qofkii waxay ku keenaysaa cudur sidaas daraaddeed ayaa tusaalahaan oo kale ani shaqada aan ka shaqayn jiray turjumaanka qayb dhan oo kamida waan iska joojiyey maadaama aan arkay inay caafimaadkii igu fiicneen hadda keliya qaybta waraysiga aan ka shaqeeya interviewga baan qaybihii kaloo dhan waan iska daayay
sababta dhibaatay u keentay qaybta soo joojisay ma ku weydii karnaa qaybaha socialka ama caafimaadka dadka xanuunsan oo kale la raacayo qaybahaas oo kaleeto macnaha way igu adkaatay waana joojiyay qof walbana inta tabartaada shaqayni laakiin markay arinta adiga caafimaadkaada ay dib gaaro ama maskixiyan dib ku gaaro de caruur baan korsanayna adiga marka waa inaad taqaano xuduudaada waa inaad taqaano marka hadda qaybta waraysiga un baan ku dambeeyay waa gartay markaan asxaab badan baan leeyahay dalal kala duwan oo Yurub ku nool markaan booqanayo badanaa waxay ugu duraan yiraahdeen dalka ka timid waa lisdilaa dadkiisu ulal iyo midi waxay wataan marka ma dhacday mar in qof dambiila ama dambi galay ama lagu soo eedeeyay inuu dambi galay in lagu soo wacay oo aad maaragtay u turjuntay niyo waan u turjumay dad badan baan u turjumay balamo badan oo saas kale tan waan leeyahay oo macnaha marmar waan tagaa kuwaas laakiin wadankan oo ogtahay security-ga say u ilaaliyaan waxay leeyihiin mataqaanaa sharci wax ay qoreen oo ka hortagaya in labada qof ay istaabtaan marka systemkaani maybe wadankan wax badan joogay systemka wadankan baa iska aaminay ma cabsado laakiin meelo badan oo waxaan tagaa macnaha oo dad mataqaanaa ma ka hadlaya arrin waxay sameeyeen kama hadlaya laakiin adiga aad naftaada u cabsan kartid balse maadaama wadankan systemkiisa qaabka macnaha ay u shaqeeyaan iyo dadka say u ilaaliyaan iyo security-gooda maadaama ku kalsoonahay wax ilaa haddana wax dhibana lama kulmin de qofku uu dhawaaqi karaa halkaa uu ka boodboodi karaa laakiin waxbaan ii dhexeeyay macnaha ilaa uu ka degayay qofka ilaa ayaga ay ka hubsanayaan oo uu soo marayo nambaray maraan tusaalehaan dadka saas oo kaleeta nambaray leeyihiin nambarkii dadka kula kulmeeyey ma raba inaan sheegay erayada u isticmaalaan nambarkii lagula kulmeeyey markii uu soo gaaro unbaa sidaan oo kale lagu soo horfadhiisin laakiin macnaha iska qof shalay lasoo qabtay oo dhibaato geystay qol lagulama xiraya macnaha waa taas adiga dhib ku gaaraya marka laga soo tago xirfadaada turjubaannimada sidoo kale waxaa tahay qof bulshada u dhaqdhaqaaqo markaan dalkan ku cusbaa waxaan xasuustaa in aad dhaqdhaqaaq bulsho oo barnaamij dhaqdhaqaaq bulsho in aad dhalinyaro anigaan ka mid ahay ku marti qaaday oo aad ugu dhaqdhaqaaqaysin in dhalinyaradu isdhexgal ay samayso in xataa caruurta Soomaaliyeed ee dalkan ku dhashay ama dalkan ayagoo yar la keenay ee dadka walaalahooda kala Soomaaliyooda ee bartaan oo ay dhex galaan waxay iga warantaa barnaamijkaas xagee ku dambeeyay niyo horta wax walba oo markaan sameynay hadda waan jeclahay inaan sameeyo laakiin mar kastuu qofka da'diisa yar weynaato mashquulkiisa sii badanaya marka maybe ana ka mashquulay laakiin kamana harin oo intii aan macnaha dadkaan la kulmana way badan tahay dadka taleefanada ii soo dirana way badan yihiin macnaha waan hawshayda waan wataa hoostaan ka wataa laakiin meel oo aan sidii waagi oo kale aan meelaha tegi jiray iyo howlihii oo kaleeto macnaha hadda kuma jiro oo waqti baan u waayey maadaama aan shaqeeyo wax barto caruur leeyahay waxyaalo fara badan marka taasaa xoogaa iga yar xirtay maahine sida kaleeto waan jeclahay maalinka aan waqti helo oo mataqaanaa ay howlahayga kaleeto iyo ay iga kala yaraadaan waan jeclahay inaan kusoo laabto sababtaa keliya maaha inaad community-gaagii waxaaga caawinayso naftaadana waa caawinaysaa waa miday dadka aysan fahmin hadda ka hor baa nin aan isla shaqayn jirno oo turjumaan ahaa ayaa waxaan ku yidhi waxaabaan lacag la'aan ku sameeyey bilaash baan ku sameeyey baan ku yidhi marka nin 70 dhowr jiro buu ahaayo Syriana waxaan rajaynayaa weli inuu mataqaanaa magaalada degan yahay marka wuxuu igu yidhi erayaan weliga iloobin wuxuu yidhi wax lacag la'aan lagu qabto ma leh markaad wax walba samaysid biri qalbiga maxaa ka dareentaa biri waxaan ka dareemaysaa farxad baad ka dareemaysaa hadda maanta haddaan shaah kuu shubo ha u malaynaa shaah kuu shubay aniga waxa aan qaatay ayaa ka badan marka adiga shaahayga aqbashay ood cabtay ama casuumadan kuu sameeyey aad aqbashay oo samaysay aniga farxadan helayo ayaa adiga taad qaadatay ka badan because adiga waxaad dareemaysaa in wax lagu siiyey xoogaa waxaa leedahay ninkan maanta dhan waxaa qalbi ka leedahay goor waan u gudaa ninkan waa inaan mar la adiga inaan saas yeelo waa inaan hagaajiyo laakiin aniga waxaan dareemayaa qalbiga waxaan ka dareemayaa in wax layga aqbalay marka macnaha waan jeclahay inaan waxyaalahaas kala sameeyo keliya waqtigii ayaa mataqaanaa igu yaraaday mas-uuliyaddana way kala sarsaraysaa waa taqaanaa nin walba mas-uuliyaddiisa la raacay hadda tayda waa xoogaa tii saxda ahayd ee aakhare lagu xisaabtamayay ayaa xoogaa igu yara badan aada u mahadsan tahay runtii waxaan ka mid ahay dad badan oo ka faa'iidaystay adeegaagii bulsho
iyo weliba mataqaanaa dadaalkaagii aad intaa dalkan aad joogtay aad walaalaaga Soomaaliyeed ugu faa'iideysay sidoo kalena waxaan kamid ahay dadka kuugu xiran bogagga aad ama fadhiyada aad ku leedahay internetka aadna ula socdo waxyaabaha soo gudbiso waxaan xasuustaa mararka kamid ah in muuqaal aad ka diyaarisay in qofka qaxootiga uusan dhiig dalkan ku tabaruci karin يعني برنامجك aad bay igaga yaabisay xitaa dadka Jarmalka oo aan aqaano ama aan isla shaqeyno ama aan asxaabtanahay markaan u sheego ku yiraahdo waxa laga yaabaa inaan aniga dhiig tabaruci karin yani way weydiiyeen sababta muuqaalkaas maxaa iska bedelay qofka dalkan markuu yimaado uu qaxooti yahay dhiig ma tabaruci karaa mise niyow macnaha mar alla keeno mararka qaarkood markaas oo kaleeto on internetka soo gelinaysaan maanta wax ogaan lahaa maybe markaan soo gelinay xitaa si kala ayaan wax kale aan ku daray comment baan ku dari lahaa macnaha mar alla keeno wadan aad timaado kale waxaa jirto wax ay qorteen oo tusaalahan wadan qaarad Afrika oo kaleeto waliba wadamada Afrika oo kale u kala calaamadeysan yihiin wadan kasta cudurka ku badan bay yaqaanaan Soomaaliya oo kaleeto cudurka ku badan reality markaan ka hadalno cudurrada macnaha ii sheegay cudurro faafo oo khatar ah oo cudurka Soomaalida badan waxay ka carartaa cudurkan saddexda xaraf ay ugu yaraan bay ka cararaan HIV ga dhan bay ka cararaan laakiin cudur laga neceb yahay jiro oo Soomaaliyana ku faafay oo cid walba ay ku dhacay waa cudurkaas waxa waaye maxay dhaaniyo hepatitis ka cudurka dhan Soomaali waxa lagu dhahaa cagaarshowga wuxuu ka xun yahay ma midkaan durbinta kugu dhaco ku dhaxmaray mid baa jiro kugu haraya oo complicated noqonaya oo qofka jirkiisa ku haraya kaas wuxuu ka xun yahay cudurka kaluu ka xun yahay badanaana qofka uu ultimo uu dilaa ugu dambeyn qofkeeda uu dilaa marka dhinacaas ayaga oo ka fikiraya Jarmanka ilaa markaa warbixintu waa sii akhrinaysaa moogtahay ayay waxay dhaheen riskigaan ma qaadan karno gobolada dhanna ma sida dad badan ay commentiga u soo qoreen gobolada qaarkood oo Jarmane ilaa wadanka wada ogtaa waa 16 gobol qaar baa sida gobolkan oo kale dawlad madax banaan oo kale ah marka gobolada qaarkood oo kale waa laga yaabaa in haday dadka fiidiyoga daawadaan dhaan anigu ma dhicin dhiigayga waa la bixiya de goboladu way kala duwan yihiin waxbarashada lagu kala duwan yahay askarta wax walba lagu kala duwan yahay marka gobolkan inuu yahay iyo meeshan taginay tahay ma garanayo ilaa hadda meeshii waan aqaana meesha ku taalo dhiiga way diidan maantana waan dareemi karaa sababta u diidan maalinka ayada markaan ka hadlayna de qaab xoogaa yar xamaasadaan uga hadlay waa gartay ma cagaarshow dhankan laftirkiisa waxa laga yiraahdaa cagaarshow waxay dhahan odayaashii hore ama dadka wax uun ka dhahay cudurrada faafa waxay yiraahdeen cagaarshow hadduu 6 jirka kugu daayo 6 jirku kugu dilaa marka ugumaan tirigelin inaan barnaamijka ku cabsi gelino laakiin waxa waaye dadka u timaado martida u tahay xaq waxay u leeyihiin inay ku yiraahdeen dhiigaaga waan ugu caawin kartaa ama uma baahnin marka taa barnaamijka inta yarta cabsida waa ka wareegaynaa sidaan sheegay waa kula socdaa muuqaalada soo dhigtid iyo waxyaabaha gudbisid iyo xoga maaragtay aad bulshada la wadaagtid ba aad baan ula socdaa maalmahan dambe waxyaabo waxa jiray aad cajiib u ah aniga lafteeda aad ii soo jiitay oo maaragtay aad faafiso waana AI-ga yani artificial intelligence-ga oo garaadka gacan ku sameeska afka Soomaaliga marka la yiraahdo inta ugu badan qofba si uu yiraahdo laakiin af Soomaaliga garaadka macmalka qolaa dhahdo qola xitaa waxay yiraahdeen sirdoonka maaragtay aqliga leh asagaas kugu yeer sirdoonka aqliga leh garaadka gacan ku sameeska maadaama maalmahan dambe xitaa aan lahayd muuqaal waxa jira aad leeysay codkan iyo muuqaalkanba waxa waaye waxa lagu sameeyay sidaasana 100% adigu ku eka ninkan aad ujeedaan aniga ma ahi waa mataankayga ah aqliga macmalka ah hitaa ah odka aad maqashaan ma ahan kayga waa ah od uu sameeyey aqliga macmalka ah bal iiga waran saameyn nuuceeb uu ku leeyahay garaadka gacan ku sameeska ah shaqadiina ma laga yaabaa in ay dawladda Jarmalka tiraahdo okay qof turjumaan uma baahnin hadda waxa ka dambeeyo ayaba telefoon lagu soo dhigaya ama telefoonka un baa u sheegaysa wixii ma taqaanaa isagaan la weydiinaya wixii su'aalo lagaaga baahan yahay marka AI-gu ma laga yaabaa sanadaana soo aadan inuu kaliya shaqadiina ma shaqooyin badan xataa inuu meesha ka saaro cabsi nuuceeb baa ka jirto maadaama adiga laftirkaaga maalmahan dambe ku dhex jirtay aniyo waa run macnaha dadka badanaana waan kala hadlaa arintii fiidiyoga aan ka hadlay waxay ahayd in ma taqaanaa ay dadkeena ay yihiin dad wax daawado oona uu maanta dhan qofku markuu uu daawado waxa iskaga dhex darsamaya runtii iyo beentii
mar haddii beentii la qurxin kara anigu weliba fiidiyoyadeeda waa iska caddaayeen oo waxyaalaha qaarkood baa la arkayay codadka waxyaalaha qaar baa la arkayay inay saxayn laakiin qofka khabiirka ku ah ani khabiirku mihi dadka khabiirka ku ah ee waqtiga badan u haya ee wax walbaba kala bedelaya macnaha waxay awoodaan annagoo maanta meeshan fadhino inay nagu been abuurtaan oo wareysigaanba ay si kale u dhigaan shaqooyin badan buu already khadka ka saaray oo AI-ga waddankaana waa arrinta ugu badan ee hadda TV-ga lagaga hadlaya wey waxyaalo fara badan buu khadka ka saaray laakiin qaybta ku saabsan qoraalka turjumaanka qaybo badan buu qaybsan yahay qaybo waxaa jirta ku saabsan qoraal oo haddaba shaqada uu qabsadaa shirkadihii lacagta ku bixin jiray in warqado loo turjumo oo de oo lacagta ugu badan ee turjumaanka ku baxday ahayd dad baa jaamacada uga soo baxda shaqada ugu badan ee qabtaan waxay ahayd buugaag inay turjumaan macnaha hay'ado warbixinadooda inay turjumaan wixii oo dhan hadda khadka laga saaray laakiin aniga qaybtaan ka shaqeynayo maadaama sharci yahay in qof saxiixo AI oo ma saxiixi kartaa meesha marka hadda ani cabsi ma jirto dhinacaas oo weli laba qof oo soo fadhiso oo la rabo qof inuu qaato mas-uuliyadaas daraadeed macnaha oo waddankan aad garanayso nin walba inuu mas-uuliyadda ka cararayo oo qof walbaba qof kale u dusha ka saaray dhinaca annaga oo dadka kala turjumaya way adag tahay inuu ay meesha naga saaro laakiin shaqooyinkii oo kale oo dhan buu dadkii khadka hadda waa laga saarayba shaqooyin badan buu la wareegay marka aniga laftigayga shaqadaydu waa warbaahin iyo waxa ku saabsan marka bahalkan AI-ga dhib badan buu nagu hayaa laakiin taa waxa waaye maaragtay ama adiga adeegsanaysid ama isaga ku adeegsanaya yiraahdeen mugsuntahay aaladahan horu maray markaan taa ka soo tagno waayihii dambe dalkan dad badan oo Soomaaliyada soo degayeen ama u soo guurayeen ama la keenayay dadkaasi familada adiga laftirkaaga waxa taa aba Soomaaliyeed oo caruur leh maxay tahay ka qof wax bartay dalkan ka halgamay maxay tahay waajibka naga saaran jiilka dalkan ama aan dhaho jiilka Soomaaliyeed ee dalkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay ee hadda soo barbaarayo badanana afkooda koowaad ama aan dhaho afka koowaad ee dalkan waa afka Jarmalka mana aan halgan sahlan maadaama tahay nin afuf badan isku kala turjumo sidee suuragal ku tahay in caruurta Soomaaliyeed dalkan ku dhasho ama jiilka ayagoo yareer la keenay si loo sidee afkooda Soomaaliga loo badbaadin karaa ni horta hawshan waan fiiriyay waan baaray ma dhahayo dad saas xumo baarbaaran waan fiiriyay macnaha kaliya markaad wax fiirinaysana meel adag lagama fiiriyo meel soko dhow waa laga fiiriyaa sidaad ogtahay waddankan dad baa ku noolaa Turkida oo kaleeto baa ku nool waad aragtay luqadooda soo ugu hadlaan macnaha ayagoona weligiis uusan tegin Turki ayuu Turki ku hadlaa hawsha ma aha hawl Soomaaliga family-ka halkan joogo ama Mareykan ama Yurub jooga ma aha waa hawl dalkii Soomaaliya ku xiran tusaale ahaan oo kale hadda Turkiga wuxuu leeyahay TV-yo aad u fara badan oo ku takhasusay caruurta waxay leeyihiin intaasoo 100 oo TV oo caruurta luqadii waddankoodii u ilaalinayso tusaale hadduu film soo baxo oo kartoona oo waddankaana ciyaalka xiisayaan isla markiiba u turjumayaan marka caruurta markay yaryar yihiin luqadooda ilaan maadaama waalidka badanaa TV-ga ciyaalkooda daawadaan ama hal saac ama 2 saac waxay doonaan aadana qaybta halkaa in laga soo dhiso way oo barnaamijyada dadka ku takhasusay ama cilmiga hadda aan baranin cilmiga inay ayagoo mataqaanaa ay Soomaali darteed u sameeyaan lacagna way keenayaan oo ciyaalka hadda waxaa la ogaaday YouTuberada adduunka ugu lacagta badan caruurta kamid ah marka inay qaybtaas ayagoo isticmaalaya AI-ga aad bay u fududaatay inay fiidiyoyada noo turjumaan filmaanta mataqaanaa kartoonada badiyaan taas waa qaybta kale ee ku saabsan guriga waalidka luqadiisa waalidka hadday luqadda ku hadlaan sharci sameeyaan way ku hadli karaan laakiin waxaa kaloo ka miisan luqad bas maaha Soomaaliga maaha luqad bas waa dhaqanna weliga Allah sidaa doonto dadaal kuma baran kartid waddankan gudihiisa Turkida ayagoo Turki ku hadlaya way haddana dhaqan gadismeen caruurtooda sidaas daraadeed ani waxaan kula talinayaa aniga nafteedana aan iskula talinayaa qof walba macnaha adiga naftaada laga bilaabo mogtahay in ciyaalkii cidna kama soo horjeedo inaad muddo noloshiisa kamida aad waddankiisa geyso si xitaa u arka fursadda waddankan taalo hadduu halkan ku koray wax badan ma baranayo haddii waddankii la geeyo uu meesha ku soo laabto nin soo taariiboo kale wey marka wuxuu arkayaa fursadda dalkan taalo iyo waddankii uu sanadka ama 2 sano ku noolaa aanan oolin marka dhaqanka si caruurta loo baro dhaqan lagama bari karo kartoon bas waa inay fikir kale la keenaa oo caruurta mataqaanaa si kale ama waddankii la geeyaa muddo macnaha waa hawl keli aniga aan ka jawaabi kara ma wadaadda fara badan baa ka hadlay
xitaa waxaan xasuunaa sheekheena weyn oo sheekh macnaha sheekh Mustafa Ismaaciil oo dhahaya Soomaaliga waa un luqadda iyo diinta Soomaalinimada haddaad Soomaali ma noqonaysid aad iyo aad waa inaad luqadii iyo diintii haysa labadaa hadday mid kaa tagto Soomaali waa ka baxday afka isagaaba Soomaaliya Isagaaba Soomaaliya. afka ma taqaan afka macnaha sheekhu wuxuu lahaa afka isagaaba diina isagaaba diinaha waayo waana xaqiiq jirta sababtoo waxay tahay markii adiga turjubaan baa tahay anigana maaragtay warbaahintan iyo waxan baa ku dhex jira qofka haddii aadan isfahmi karina oo uusan jirin af ay isku fahmi kartaan xataa qolooyinka qaarkood waxay gaarsiiyeen heer ay dhahaan qof aadan isfahmi karin iskuba diin ma ahidinba exactly mana dhehayno dad badan oo muslimiin oo waxaa jira maaragtay kala afaf duwan marka laga soo tago inaad qof turjubaana tahay bulshadana wax u qabto qofka Soomaaliga ay u baahan in la caawiyo ama in adeeg loo qabto qaab nooc ah kula soo xiriiri karaa xageena laga heli karaa bal dadka la wadaag horta niyo internetka waan ku jiraa saa hadda uga hadalnayba oo Facebook iyo waxyaalo badan baan leeyahay mana ballan qaadayo qof walba oo ila soo xiriiray inaan jawaab degdeg ah siinayo because san sheegaba nin walba macnaha mas'uuliyadiisa kala ku badan saaran laakiin su'aalaha aan ka jawaabi karo ama dadka qaab walba u caawin karo oo tala ah sidaan hore ugu caawin jiray waan macnaha way la soo xiriiri karaan waan uga jawaabi karaa su'aalaha qaarkood nigama caawin karo markii dhinaca shaqada markii la fiiriyo kale maadaama shaqooyinka aan ka shaqeeyo dartiis aan waxyaalaha qaarkood kale aan ka hadli karin laakiin wax kasta oo ii furan inaan qofka Soomaaliga ka caawiyo diyaar baan u ahay macnaha waxaad nagala soo xiriiri kartaan meesha aan ugu badan aan isticmaalo waa Facebook halkaas aad qoraal iyo cod iga soo duubi kartaan hadduu wax muhiim ah marka aan ku soo celin telefoon ahaan haddii kalena cod ahaan iyo qoraal ahaan baan ugu soo jawaabi doonaa insha Allah maxay tahay fariintaada ugu dambeyso ee ku aadan guud ahaan Soomaalida dalkan ku nool gaar ahaan Soomaalida magaalada Munich ku nool Soomaalida magaalada Munich ku nool haddaan ku hormaray ilaa meesha aan deganahay waxaan kula talinayaa in meeshii ay joogeen wadanka markay soo galeen inaysan joogin ay mar walba tilaabo hor u qaadaan ay tilaabada ugu weyn ee la qaadi karana waxay tahay inaad wadankan luqadiisa baratid xirfadna aad baratid ugu yaraan aad xirfad baratid taas baan kula talinayaa aysan meeshii ay shalay joogeen ay maanta tilaabo ka qaadaan macnaha Soomaaliya taas aan kula talinayaa tan guud ee Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan kula talinayaa in ayaga ay tusaale dadka kale u noqdaan qof walba oo Soomaaliya waa safiir waa inuu tusaale u noqdaa ugu yaraan ciyaalkiisa ugu yaraan xaafadiisa familkiisa waa inuu tusaale u noqdaa oo ay meesha ay fadhiyaan ay ka kacaan bulshada ay ku dhex nool yihiinna haddii ay bulshada ku dhex nool inay tusaale nii sheegaba ay safiiray ka yihiin waa inaysan dhibaato gaarsiin intay dhibaato dadka gaarsiin lahayn sidoo Imaam Al-Ghazali yiri inta annagoo Soomaaliya dhibaatana gaarsiin lahaydeen ama aad dadka aad u imaateen aad dhibaato gaarsiin lahaydeen hurdada badiya iska jiifta dhibaatana gaarsiin aad baad u mahadsan tahay sida ka dhawaajisana qof waliba oo Soomaaliya waa safiir dalkiisa iyo dadkiisa iyo magaciisa matala sida daraadeedna waa sababta aan barnaamijkan u sameynay Danjire oo ku mahad celinayna sidoo kalena dadkana daawanayo ama na daawan doono way ku mahadsan yihiin maadaama ay inta nala soo gaarin maanta waxa martino ahaa Ramadaan Axmed oo ku magac dheer Xasan Ji nin turjubaana bulshada Soomaaliyeed dalkan ku nool ay taqaano gaar ahaan magaalada Munich sidoo kalena duu ilaahay raalli ka noqdo waxaan barnaamijkan ku martaqaadi doonaa qof waliba aan isleenahay bulshadiisa ama dadkiisa wax uu u faa'iideyn karaa naftiisana wax uu u taray idinkana haddii aad jiraan qof ama dad aad isleedihiin way fiicnaa lahayd in la soo fariisiyo oo wax laga weydiiyo ay aragnimadooda talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda dadka Soomaaliyeed ku aadan hoos waa nagu soo qori kartiin waa mahadsantihiin mar kale iyo mar saddexaadba intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkeena Danjire waxaan idinkaga tegaynaa fiidnimo wanaagsan sidoo kalena waqti qurux badan nabadgelyo oo mahadsantahay aad